محمد إبراهيم ورسمة سعيد عذراوي قف ماهي وقروي ومعتصو صومرتي تاريخ فنك الصومالي ما أفريقيا هاي نقاضنا وهاي نفهمنا ضدك إن قدنا شيء ينا نقبل كذي وحنا ما يدكوا هدا عبد كذبوا أنو وابو نوجو بريسوتشي يقارن يا وراق وحلا لو حلعبوا أنا كدورين أنا بشرته وحويان حلا دماغ نكون دبوا حل باكو ديري وكسوتشي دنيا واجب نورش كتير جوبني ماذا أول بعد دون كده أما أتكنت دي إلى لنتيه راوي دالس هذا اللي بيري كده waxaan oran karaa horta marka ugu horeysa waxa uu cid walba kaga soocan yahay maansadiisa waa bad waa malxami waa maanso adduunka oo dhan gacan togaaleynaysa qaybo badan u kala guuraysa ilaa marka ugu dambaysa meeshuu isagu doonayo ku biirto inta uu dhaafi maayo suugaantiisa muggeeda ayaa aad u ballaaran taasuu dad badan kaga duwan yahay تكلا وحوي waxaan oran karaa haddaan hadraawi bartay oo muddo badan wada noolayn saaxiibtinimo aad u qoto dheerna ina dhaxmartay waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu hadraawi caan ku yahay ereygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin Soomaalida ka sokow hadraawi waa gabayaa ay bini aadanka oo dhami wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah Soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bini aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bini aadminimada ah ee uu wax uga tariyay nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo Soomaalida iyo caalamka guud ahaan محمد إبراهيم ورسمة وهدراوي إلهي وسهلي فالكنتا الصدودنكا iyo anshaxa dhaqanka Soomaaliyeed محمد إبراهيم ورسمة هدراوي أبوان كوين الصومالية عنك وحويا هدي تاريخي شرته قبل جوال لقوش يكنشي قبل جمهور حين لغة لغة راجع وقاس بوسمي هيا لذي راجع وقاس بيراي سوقات تاني هتراوي سمات بدن أيو كسر بيري أو يسقو ككوها أو دمنا يسدي كسرت دور صنانته يورو صنانته شخصية بسولة هاي يسده وارو ومجانا سعداء ولا حين dadku ay u haystaan hadraawi markay maqlaan in nin mar walba xidmadu ay ka qubanayso oo aan afka isu garan laakiin markaad aragto inta uu hadlayo iyo dadka uu la hadlayaa waxay u kooban yihiin iyo haddana ilhaamka ka soo deexaraya ayaa wax lala ashqarano aad u la yaabaa maxamed ibraahim warsame hadraawi shakhsiyadiisa iyo suugaantiisa waxaan anigu u aqaanaa badweyn bilaa xeeliya anu suugaantiisa si aan u fahmo waxaan u kala qaataa saddex qaybood oo kala ah hadduu ka hadlayo tabasho oo tabashooyinkiisa faraha badan leeyahay ka mid yihiin cadaalad darro hadduu tabanayo oo cadaalad doonayo haddii uu doonayo muxuu ahaayay in sidan loo nooliyay si ka duwan loo noolaado suugaantiisa tabashada qusaysa markuu ka hadlayo wax sameeysa malaha hadraawi waxa loogu tala galay inuu taan ka hadlo haddana markaad aragtay isagoo ka hadlaya tala bixin suugaantiisa tala bixinta ee uu tala bixin soo jeedinayo iyadana waxa sameeysaa malaha waxa loogu tala galay inuu taa ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana ma axlaha waxaad garan karaysaa yaani inaad ninkaas yahay nin qalbi nool leh محمد إبراهيم ورسمة وهدراوي وحنو وذا كلنا كوسجال بقول إحدى يسجالكي تمامه سا لبا قطب ودقدقة أن أروحه وأنا هاي مدي وسيدا ويقانو أما وطلعه وحصاحب لماذا اللي يراهدو يو حبك وجديدو وأيكوتهاي أو معنى له ويقان ومد اللباد هالأبورك وكسر مي وجونية
maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabiga lagu yidhaahdo ee fogaalka humaaga fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yidhi isla weyn hankeedaa wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaaroo lugta webi u geliyee xagguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo bistimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaannaa inta uu jeegaan quruxdeeda iyo siday tahay sida uu u cabbiray oo ku yaalla iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi kala dhiman adduunyay maxaan kaaga dhololaa hadraawi uu ka xeel dheer yahay in lagu astaysto abwaan gabayaa ama shakhsiyad waa manhaj nololeed soomaaliya oo dhammaystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara weji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaanan ahay dadka ka marakacaya abaalna u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyey af soomaaliga falsafadda islaamka wada deganaanshaha xorriyad u dagaalanka iyo xaqu dirirkaba waxaan ka qaadanayaa waxbarashada tuduuc yaroo gaaban uu ka tiriyey gabaygiisii dheeraayo dabahuwa iskuulladu waa dayeen damiinimaday dhigaan dantay uma soo lugoy digtoor cadow way sideen digrii cadow way sideen waxa weeyaan waa deeqsi waa niman adduunyadan waxba lahayn wax dhaqo wax dhigo wax dhiso biri maxaad cuni waxaa la isku wada laynaya adduunka dhalanteedka hebra hadraawi shaqa kuma laha hadraawi waxa weeye nin naxariis badan weeye dadkuna aanu kala xigin waxa weeye nin cilmi iyo caqli iyo garasho iyo naxariis iyo wadaynimo iyo karti isku darsaday waxaa kaaga filan wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid wadaan wid lagu yidhi wadha hayla soo gelin hayga jebin weysida buuri iyadana waxaad soranaysaa uun malaha waxa loogu talagalay inuu taa uun ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana maaxlaha waxaad garan karaysaa yani inaad ninkaas yahay nin qalbi nool leh maxamed ibraahim warsame waa hadraawi waxaanu wada kulannay 1969kii tilmaamihiisa laba qodob oo degdega aan uga xuso oo aan ahayn midi waa sida uu u yaqaano ama uu ugu tollaado waxa saaxiibnimada la yidhaahdo iyo habka uu ugu gaadiido oo ay ku tahay oo macno leh oo uu yaqaan waa midda labaad waa halabuurka uu ku socmay oo gooniya maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku joogaan qof waliba wuxuu leeyahay madal khayaal waxa carabiga lagu yidhaahdo ee fogaalka humaaga fogaal humaaga ayaanu ku tilmaansanaa wax yar oo hadduu tilmaanteeda halka uu u marayo hadduu wuxuu rabaa inuu sheego qofkaasi isla weyn iyo isla weynadu dhibtay leedahay qofka tegey ee ku geeyey ee ku yidhi isla weyn hankeedaa wiil aan jaraysnayn ugu wara maqaaroo lugta webi u geliyee xagguu ku geeyey wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay caan ku tahay waxa qurux kastuu yidhaahdo tabane la yaab leh buu ka dambaysiiyaa oo bistimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaannaa inta uu jeegaan quruxdeeda iyo siday tahay sida uu u cabbiray oo ku yaalla iyo ugu dambayntii wuxuu yidhi kala dhiman adduunyay maxaan kaaga dhololaa hadraawi uu ka xeel dheer yahay in lagu astaysto abwaan gabayaa ama shakhsiyad waa manhaj nololeed soomaaliya oo dhammaystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara
weji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaanan ahay dadka ka marakacaya abaalna u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyey af Soomaaliga falsafada islaamka wada deganaanshaha xorriyad u dagaalanka iyo xaq u dirirka waxaan ka qaadanayaa waxbarashada tuduuc yar oo gaaban uu ka tiriyey gabaygiisii dheeraayay dabahuwa iskuuladu waa dayeen damiinimada ay dhigaan dantay uma soo luqay دكتور عدوي سيدين دقري عدوي سيدين هذا وحويان وديقسي وانا من الدنيا وحب الله هاي وحدقو وحدقو وحدسو بريم حاضروني وحال اسكود الله ينا يادون كان دلانتاتك هبرا ادراوي شقكم لها هذا وحوي لين حريص بدن وي dadkuna aanu kala xigin waxa weeyaan nin cilmi iyo aqli iyo garasho iyo naxariis iyo wadaynimo iyo karti isku darsaday waxa kaaga filan wuxuu lacagay wid lagu yiri wada hayba soo gelin hayga jabin weysida